السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشر كان لحد إكوساب سنة 8 parts of speech. Preposition. Preposition is a word placed usually before a noun. Before a noun. Preposition maxaa la yidhahdaa? Preposition waa erey kaasoo badana ama caadiyanba in la dhigo nounka gadaashiisa. Waxaa la dhigaa prepositionka nounka gadaashiisa la dhigaa. Marka tusaale the little girl spoke sweetly to a stranger. Marka to waa preposition. The stranger waa nounkii. Marka intee la dhigay? Waxaa la dhigay nounka gadaashiis ayaa la dhigay. So uma jeedid. Waxaa la dhigay marka nounka gadaashiis. Marka prepositionka kaliya ma ahan to waa hal example oo aan soo qaatay. Aad u far badan yihiin. Waxaa kamid ah in for in on waa badan yihiin marka waxaan rabaa inaad kaliya aad ka qaadato xogaa fahana inaad ka qaadato ayaan rabaa marka insha Allah waxay la tahay in la fahmay casharkan ku saabsan preposition subscribe channelka si aad ula socoto casharada kale ee soo socda insha Allah isma dhaafin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.